السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت leh igu xiran sideetiin mii fiicantiin xaaladiina ka warama aan weydin wanaagsanahay subax wanaagsan subaxay noo tahay waan soo kacay quraac yar oo qurux badan oo fiican baan kasoo tuurtay soo halkan aan quraacdii la yimid waxaan rabaa inaan quraacdo soo quraacdeeda aan saak samaysto waxay ka kooban tahay waa boorashka madow oo multigrainka la dhaho waxaan soo dul dhigtay wax yar oo yogurt ah jeex muus ah jeex camba laf ah camba mango ah iyo waxa waaye wax yaroo dhowr loos oo isku jirjira ah soo intaasaan maanta insha allah aan ku quraacan doonaa waa quraac yaroo iska fudud isku dheeli tiran markaad cuntidaadan cabaar ka gaajooneynin caafimaadkana u wanaagsan ani waxa waaye subaxdii aan heli karo cunto yaroo iska fiican aan cunaa ma fahanteen kole ani nafteeda waa u roonahay dadka kalena waa kula taliya inaad naftiina u roonaataano cunto yaroo qurux badan oo isku dheeli tiran oo isku fadhida aad cuntiin hadda awoodaan yacni soo waa kaasaa quraacdeedii yareedaan soo cunay quraacda marka soo cunayna halkan waxaan kusoo diyaarsaday alaabaan raba inaan kusoo labisto halkan waxaa yaalo waa kareemyo waa kii qoraxda waa serum iyo snailkaas oo wajiga la marsado moisturizer ah sheeladaas iyo waxaan xiran doonaa cabaayadaas cadaryaashaasna isku shubi doonaa labista yarna dhaxaan soo siin doonaa halkana laba fil baan kusoo diyaarsaday waxaan rabaa inaan hosbitaal tago soo laba hosbitaal baan tegi doonaa mid yashuura la dhahaa midna kimis baa la dhahaa labada hosbitaal aan rabaa inaan isku mara maanta insha allah soo waykana waan soo labistay kareemyaashii aan wajiga soo marsaday muraayadeediin hore kasoo gashtay ani reero makeup ma ihi makeup wajiga iga dilaa soo makeup dhan ma marsado kareemyadeedaas iska marsadaa dan wajiga wuu iskaga kee dhalaalaa ma fahanteen soo gaariga uberkii aan dalbaday uberkii ii yimid anigana gaarigii aan soo raacay baryahan oo dhan waxaan ku jirnay xilli kuleylihii naga dhamaaday hadda xilli roobaadkii aan u galnay monsuunkii aan galnay maanta waxa weeye cadceedan ma jirto jawiga dhan jawi qurux badan oo macaan weeyaan waa daruur keliyaata dhulka dhan waa mugdi mugdi ka sheekehe xilligaana qoraxda dhici jirtay bishii hore waa la yaabi jiray indhihii kaala soo baxaysay soo hal saac baan jidka kusoo jiray maadaama roob da'ayay traffic jam xun baa jiray saacadan markaan soo socday hadda cusbitaalkii aan soo gaaray waa kana cusbitaalka hor imid kimis baa la dhahaa saan buu u eegyahay den marka cusbitaalkii soo galay hore baa waxaan ka tegay qaybta oo dashay baadhadii waxaas laga maro den waa kana dhiiggaas kasoo qaadayay ahayd waxa waa xididadeeda way yaryar yihiin marka hore looma helo kadib ninkii irbadii igu walwalaaqay cabaar markuu igu walwalaaqayay qof baa la ii waxa lagu yiri nabalkaal qoftaan gacanteeda soo tuuji dhiig dhan wuu kasoo bixi laayay kadib anigoo sidii dhiigagii aan saga soo qaaday kadibna waxaa imaaday ahayd meeshii dhakhtarka fayl baa loo galaa line 2 saacadood meelahaasaa la sugaa waxaan sameeyaa sheybaadhkaas kasoo hor qaadaa 2 saacadood oo dhakhtarka sugaayo iyo sheybaadhka jawaabtiisa ii soo baxda nin way kana halkaas iska fadhiyaa waa caajisa meesha u fadhiyay moobilkii dabka iga sii dhammaanayay soo ma isticmaali karaynin maadaama wax ku duuduubi rabay halkana caajis aan la fadhiyaa ma fahanteen hurda igu qabatay saan layn ugu jiray wax soomaali dhanna ma jooginba cusbitaalka adi muddo dheer kadib kana dhakhtarkii aan usoo galay ahayd finally waxa waaye dhakhtarkaa telefoon qabsado waxaan dhahay inaa video yar ka gaarsiiyo u yara duuba kadib waa kaasaa dhakhtarka qolkiisaan u eegyahay anigoo dhakhtarka oo jawaabay wixii dhan ii akhriyay aan isla soo hadalnay hawshaydii aan soo dhamaystay marka waxaan rabaa inaan muddo yar kadib safar galo ma fahanteen marka maadaama aan safri rabo wuxuu igu yiri waxaan qaadataa vaccination-kan oo ah hargabka waa flu vaccination baa la dhahaa amba flu shot hargabka oo si yaroo fudud buu kugu dhacayaa marka vaccination-kaas aad qaadatid soo vaccination-kii aan yimid meeshii la iskaga mudayay waa kana sanadkiiba hal mar la qaataa vaccination-ka awal bishii 8aad aan qaadan jiray soo hadda bishii 8aad ma sugi karayo soo haddaan qaatay maadaama bishii 8aad ka hor baxayo soo kii gacanta iskaga soo muday nin dhakhtarka kasoo dhamaaday ahayd iskaga soo baxay dhakhtarkii kale hadda tagaya soo dhakhtarkii kale waan yimaaday laakiin maxal asaf dhakhtarka waxaa bal igu yiri safar buu ku maqan yahay 3 cisho kadib wuu imanayaa ehelka ihaay
soo kaajay haysay marka dhakhtarka kale oo yaashoodha la dhaho waxa ku yaalo kufeedhay soo kufeedhaygii halkaa cunto ka dalbaday maadaama uu kaajoonayo xilli dambena ay tahay kadib waa kana cuntada aan dalbaday aa la ii keenay kule cunto fiican ma hayaan ma fahanteen waa iska kufeedhay waa cafeteria camal waaye soo intan yar baan ka dalbaday ahayd waxa waaye halkaa waxa iigu jiro waa keeg ma aqaan cheesecake muu ahaa magaciisa ma garanayo maanta iigu horeysay inaan keekan cuno halkan yaryarna buskud yar baa ii yaalo waxaan dalbaday ahayd garlic bread waa rooti la mariyay toon iyo butter iyo kabsar iyo waxaas iyo kafee baan dalbaday because cabitaan kale mayna haynin soo way kana halkan aan iskaga yara nastay ahayd cabaar cuntadeeda yarka ah baan waxa waaye isku riday inkastoo junk food tahay cunto caafimaad leh ma ahan yacni soo intan aan iska cunay ahayd aan iskaga qadeeyay iskaga enjoy gareeyay ani garlic breadka waanba ka helaaba yaa kafeegayga iska cabay cheesecake-gayga iska cuncunay ahayd yaa horta videoga hadaa halka isla soo gaarnay fadlan like ii saara asxaabtiina lasii share gareeya si asxaab sidiin oo kale u qurux badan ay igu soo xidhmaan insha allah daawashada videogana waa ku mahadsantihiin soo cuntadii yareed markaan soo cunay uber baan soo dalbaday gurigayaan ku socdaa xilligan saacadda waa 5:15 ma ujeedaan gaariga uberkiyaan sugayaa ma fahanteen waa kaasaa bacdaasna faylalkii waxaasaan kusoo ritay maadaama roob da'ayso ay iga qoyin waa kana uberkiyaan soo raacay wuxuu igu yiri gurigaaga 3 iyo 40 daqiiqo maxaa la dhahay ku tegaysaa awal waxaan ku tagi jiray dhowr iyo 20 daqiiqadood roobkii da'ay dartii ee magaalada dhan jaam u noqotay waa kaasaa wadada fiiriya gawaari dhan ma dhaqaaqayso jaamkana saacad kale kusii jiray ma fahanteen asaan jaam ugu sii dhex jiray oo meesha iskaga caajisay oo daalanahay gurigiyaan tegay gurigii markaan tegayna maanan nasanin intaan dharka iska bedelay aan shaawarkeyga soo qaatay aan dib u soo labistay gabadha oo dhakhtarkan u shaqaynayay aa guri iibsatay soo gurigii u duceynaysay ma fahanteen xafladii u qabanaysay gurigii soo tiyaa la iga rabay 7 habeenimo ana gurigii 6 waxoogayaan tegay soo waa kaasaa horaan kasoo labistay ahayd makeup dhan ma marsanin labis kaliya iyo maskaraan indhaha marsaday xitaa suniyaa ma samaysanin diraca xariirta ana waan kusoo dhacay kadib anuu ordayaba meeshii yimaaday dee xafladii halkanaan waxaan ku raahday ducun bay ahayd ma fahanteen kadib cuntadii wixii naloo keenay cashadii waa kaasoo waa bariis yar chicken yar fish yar hilib yar maraq yar macmacaan waxyaabahaas lagu cuncunaayay waa iska fahmayseen duca camal kadibna halkii aan kusoo waxay ahayd kusoo cuntaynay kusoo cashaynay markaas waxa waaye cabaar baa meesha iska joognay ahayd waxaan ka imaaday 12 habeenimo oo wax yar dhiman maanta waxay ahayd maalintii daalka adduunka way kanaanoo diracayga xidhan diracaaseen ku ahay guys ani ma xidho badanka xariir iyo diracyada iyo waxyaabahaas qof buuran ay iga dhigaan marka waxa waaye finally gabadhii hadiyadii waxna siisay waa kana hadiyadii halkaa idiin soo sawiray ma fahanteen aniga saaxiibaday waaye hadiyadihii nala soo siiyay idin tusinayay finally 12 wax yar dhiman aan gurigeyga kusoo noqday ma fahanteen gurigii markaan yimidna horey baan ka seexday waan daalanaa dee maanta markaasaas maalinteedu u eekayd maalin aad iyo aad u dheer oo u daal badan laakiin aan waxyaabo badan soo sameeyay ahayd dee waa kaasaa daawashada videoga ku mahadsantihiin intaan videoga ku xiga ka kulmayno waxaan kaga tegayaa maca salaama bye bye see you soon